haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo inoo hayo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, waa su-aale soomaalidu ummadaha kale ma ka dulqaad yar tahay mase anaa mooday. degdegsinyuhu ma waxay hiddo u leedahayba mase aadanaha kale ayay kala mid tahay. si haddaba aynu u helno qayb ahaan su-aalahaas iyo kuwa lamidka ahi jawaabaha ay yeelan karaan, waxaynu ku qasbannahay inaan dib u milicsano dhaqanka soomaalidii hore iyo waagii ay xoolo raacatada u badnayd. kaasna waxaa sida la og yahay loogu irkan karaa suugaanteeda, gaar ahaan mahmaahdeeda, maansadeeda iyo heesaha hiddaheeda. aan kolka isku dayo inaan soo bandhigo tusaalayaal lagu garan karo dulqaadka soomaalidu inta uu la eg yahay. ninba alla baryi jiray arooskiisa ama kan wiilkiisa u dabaaldegi jiray ama muraad kaleba yeelan jiray. markaasoo kale intuu xoolo qalo ayuu wacan jiray dad badan oo geed reerka sabadiisa aan ka fogayn soo gabran jiray. haddiiba nin ragga ku jira oo malaha adkaysi badan aan gaajada u lahayn ayaa marba xagga reerka isha ku xada, isaga oo raagsanaya xeryihii hilibka ku jiray iyo dhiilihii ay caanuhu ka buuxeen oo aan soo muuqan, siduu isleeyahayna aan soo dhoweyn. marka dambena wuu ku hadli jiray oo wargaajaana laysae muxuu reerku sidaa noogu gelayaa, ayuu kuwa garab fadhiya midkood ku qarsan jiray. in cunnada lagu hadlaa inay dhaqanka ceeb ku tahay markii la xusuusiyana wuxuu cudurdaar ka dhigan jiray mahmaahdii ahayd wax la raajaa ragga kuma sama, taasoo loogu garaabi jiray. adaan kolka ku weydiine, ninka neef ama laba hilibkood loo bislaynayo sugi waayey dulqaadkiisu waa sidee? soomaalidu dowlad may ahaan jirin. qarniyo badan bay ahayd ummad aan talis dhexal ahayn. in doora baa la soo gumaystay. muddo haatan 60 gu oo keliya laga joogo ayaa ugu horreysay maamul ay u madax bannaan tahay oo habka casriga ah ku dhisan, ahna isla kii uu gumaysigu uga tegey. kolka su-aashu waxay tahay, marba madaxda talada loo dhiibo intee bay tahay in waxqabadkooda laga dharsugo? wixii ay ballan qaadeen ha meel mariyeene intee bay tahay inta loo dul yeesho in loo korto? gobonnimada waagii loo halgamayay dadweynaha runta oo idin looma wada sheegi jirin. waxaa dhagahooda loogu raaxayn jiray gumaysigu markuu baxo in qof waliba uu farta malab dari doono, in dadku xor noqon doono oo qof waliba wuxuu rabo uu samayn doono. saraakiisha gumaysigu siday u ladnaayeen si la eg in markay kuraasta banneeyaan loo wada ladnaan doono. riyadaas macaan mooye dadka looma sheegi jirin runta xalaal oo ah si ay u jirto waxna looga dheefo in dowladnimadu u baahan tahay shaqo adag, wax soo saar, waxbarasho, amni, kala dambayn, dastuur loo hoggaansamo, xeerarka degsan oo la ilaaliyo, hantida la wada leeyahay oo boobka iyo musuq maasuqa laga dhowro. sidaas inay arrintu ahayd oo himilooyin aan suuragal ahayn isla markaasna degdega uu dadweynuhu calanka ka filaayay, waxaan tusaale uga dhigayaa gabay uu tiriyey nin si weyn maansada soomaalida loogu yiqiin. waa allaha u naxariistee aadan yuusuf axmed oo aadan carab ku magac dheeraa. 2 ama 3 gu ayaa calansaarkii laga joogaa. inkastoo uu reer miyi ahaa, haddana wuxuu ahaa magaalo ka warqab aad ugu warhaya siyaasadihii baryahaas dalka lagu dhaqaayay. xubin firfircoon ayuu ka ahaa xisbiyadii mucaaradka ee 1960nadii kii ugu weynaa oo gareedka loo yiqiin, kolkii dambase SDU la baxay. 1962kii bilihii u dambeeyey, aadan oo sidaas miyiga iyo magaalada uga dhaxeeya ayaa dharaartii dambe isaga oo qurac dhallaan ku sugan, cudurka duumadana aad ula liita, wuxuu tuulo u dhow kiniini uga dirsaday nin ay walaalo ahaayeen. kii oo kiniini u wada ayaa ku soo noqday, wuxuuse u sheegay inuu uga soo iibiyey dukaan dawooyinka lagu gado. aadan oo la yaabay warka uu maqlay ayaa yidhi, oo cilmiyow, ingiriisku waatuu daawada bilaash nagu siin jiray, miyay gobonnimadu nooga daraysay?
dhacdadaas ayaa dabadeed ku soo kicisay xukuumaddii ay leegadu hogaaminaysay waxyaabihii uu ku dhaliili jiray ee uu kaga soo horjeeday. isaga oo weli fadhiya halkii uu kiniiniga ku liqay ayaa waxaa ku soo booqday nin xanuunka ku ogaa oo bal siduu noqday soo arag is yidhi. markaas buu ku yidhi, maxamedow, maanta waaba gebye oo maxaa tidhi? ayuu kiina ku celiyey. halkiibuu aadanna ugu mariyey gabaygii soomaalida dhexdeeda caanka ku noqday, ma mucaarad baan ahay, gabaygii la baxay ee dulucdiisa shishe ay ahayd gobanimadii in aan waxba laga dheefin oo haddoo la hayo, iyo markuu gumaysigu joogay ay tahay dameer labadii dhagood. waa gabay dheere aan ka soo qaato tuducyadiisa kuwa ugu caansan qaarkood. waxaa ka mid ahaa: sidii baan marqaafiyo u sitaa ama maraykaane, sidii baan maqaar ugu gam'aa meel la ii dhigaye, sidii baan makaar lagu gubtiyo milic u jiifaaye, sidii baan madaal dhali karsho iyo rodol u miistaaye, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caano qura ugu macsuumaaye, sidii baan masruuf uga dhigtaa midhaha toomoode, sidii baan mawaashiga hayaan ugu maqiiqaaye, sidii baan majiiraha dhabbada ugu masaafoone, sidii baan manjaha ugu socdaa moodharli'idii. wuxuu ka danqanayaa weli sida aan waxbarasha u jirin. ninkii nin dila in aan loo dilayna weli sidii hore magtii looga bixinayo. weli sida waagii ingiriiska in geela ay dowladdu kii lahaa ka mooda duugayso. weli sida aan xeerarka loo dhaqangelinayn ee sharcigu wax aan lagu dhaqmin uu u yahay. wuxuu yidhi, sidii baan tacliin uga marnahay macadka diimeede, sidii baan madow ugu jiraa maata iyo ruuxe, sidii baan macruufka u sugaa macallinkiisiiye, sidii baan magtii uga baxshaa muuminkii dilaye, sidii baa miskiin tudhul lahaa looga mariyaaye, sidii baan haddii tuugi miro midigta loo goyna, sidii baan xafiis meel fog jira ugu muctaadaaye. haddii laba ninoo wada muslina madaxda loo geeyo, sidii baan guddida loo maraa waxu masaynayne, sidii buu rumaan ugu murxaa kii maxbuusiiye, sidii baa sharcigii mayd u yahay aan murwar ahayne, kuwa midabka soomaalinimo lagu malaynayo, sidii buu kiniin uga mutaa maralka jiifaaye, sidii baa dalkii inaga maqnaa muran u joogay. mar kalena maantaas madaxdii talada dalka haysay ayuu ku eedeynayaa danahooda mooye inaysan u soo jeedin daryeelka dadweynaha, had iyo jeerna ay dibadaha u sadcaalaan iyada oo aan lala ogeyn waxa ay ka keenaan dhulkana aan looga faa'iideyn. wuxuu kaloo gabayga ku soo qaadayaa arrin xiisa leh oo ahayd calankii soomaaliya ee buuhoodla ka taagnaan jiray in markuu gaboobay oo uu calal u ekaaday halkuu surnaa laga soo dejiyey, dabadeedna madaxdii dowladda ee magaaladu ay awoodi weyday ku kale oo cusub inay ku beddelaan. haba iska eegtee. wuxuu yidhi, mooskada raggow duulaya ee maylka tirinaya, goormaa waxay muujiyaan lagu manaafiici, mamardaadi baa socodka aan miiq la qabanaynin, sawriigna noogama mudaan madashan buuhoodle, bal intee muddaahan sugnaa maaxda iman doonta, bal maxaase hay muuqatee maradii loo qaatay. waa calankii. mukhlis iyo haddaan lagu shaqayn orod maleegnaana ma xiniyahay moodayaan muunad nala saaray, ma naftiinna maara u qabtaa nimanka loo miiray, maashiya haddaan melilka saro madow miyey fowli, ma mucaarad baan ahay haddaan xaqa ku maansoodo. laakiinse ada carab u waroonaa oo nin calanka weli sinsanaya oo wax ka sugaya ayuu ahaaye. waxaa jiray gabyaa kale oo haddiiba wanaag iyo waxtar ka soo socda ka quustay, ayna ka hoostay inuu cagta u dhigo bal inta fulinta qorshaha u degsan ay madaxda ku howlan tahay. waa maxamed nuur laangare, gabayaa la oran jiray oo inta madaha saboolay oo kululaaday tixihiisii middood calanka ku daraabay, dabadeedna yidhi, calan yahow dhib baa igaga timi dhalashadaadiiye, dheef baa lagaa sugahaye, dhiig sidaa tahaye way kala dhig adigoo dhiciyo meesha dherarow. kolka su-aashu waxay tahay, dowlad 2 ama 3 sano oo keliya dhisnayd garma loogu leeyahay in laga filo inay daboosho intaas oo baahi ah oo aadan carab soo taxay, mase waxay daaran tahay dulqaadyari soomaalida ku laran laguna abuuray. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joog. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.